إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. أعاذني الله منها وإياكم. سوى الدواذا وحن لايف كنا هاي ولا لها إلهي هالبركة يا باب الريان وحكلا أن كل شيء تلكونفرنس ولا لها أمهات الخير أو كلا شوجة الدنيا دعالة أردن وحكلا أو لايفكو لفتيس وكل من يندد الدنيا شوجة دعالة أردن إلهي هيدا بركة الأمان. أن ولا لها لايف كأه وحن محاضرة ير أما موعدة أنو بحيي جيريدا أيا إنه أوقف لنوانو قلب إنك جدتك إنه كسوغن يجيريدو سيدي نور فايسو أن لينو دينينين أيا لبا طريق يلبا مذهب يلبا وضو وآن إسو إيمان هاين كوكالا سوغن dhammaantiin soo dhawaada sheergareeya marka diinta iyo qabriga iyo qiyaamaha iyo waxa ka dambeeya aad maqasho shaydaanku uu ku eriin ha ka cararin mawcidada ha ka cararin inaad alla dhageysato ha ka cararin waxaanad huraynin ha ka cararin mawd iyo malag kugu soo socdo intuu ku soo jiro aanad ogeyn. alla wuxuu yiri yaa ayuhal insaanu إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وادق يسان باليدي دقيقة كستوك رافته وحد كسق يسان موت يملك الموت أدليس كيسا كجرته وحان الله كل ما يسا الليه كو أبوري إيكو سميي فملاقيه وأنا الله بين الله كل ما يسا لذلك ما هبونا وحان لهوري إناد كعررته ما هبونا وحن كو هبونين إناد كو عررتو ما هبونا إلهي سبحانه وتعالى وحكو دوينايا أو قلبي قاقا دبعينايا إناد كفوقاتو ما هبونا وح قلبي قاقا أتكينايا إيمانك قاقا لتقايا أنشا حاقيا أخلاق دادا لتقايا إناد قلبي قاقا كدرقسو أو سيدا بوش بيالا دحدقاي أما سليد أما صبق أما ملبلا دحدقاي وهي قلبي قينو qalbigaaga wixii aad ka dhergiso ayaa marka la tuujiye ka soo baxaya marka uu mawdku ku yimaado iyo malakul mawdku ee nafta la oofsanayo qalbigaaga wixii ku jiray buu malakul mawdku ka helaya marka qalbigaaga la tuujiyo haday heeso iyo xumaan iyo fisqi iyo dhibaato iyo qaflad iyo qalbi adayg iyo shaydaanka oo jaar la noqdo hadii uu qalbigaaga ka buuxay kaas ayaa laga tuujinaya sakaraalku mawdkuna wuu ku dhibaya su'aasha ay ku weydiinayaan malaa'iktu kuwa ku oofsanaya iyo kuwa qabriga lagu geeyana ku fududaan mayso laana qofku wuxuu ka shaqeyn jiray adduunkii haduu xumaan ka shaqeyn jiray xumaantu sunba qalbigii ka soo baxaysa hadii se qofka qalbigiisu uu wanaag ku jiro ilaahay jaarnimadiisa ku jirto salaada subax ku jiro haduu xijaab ku jiro haddii indhahool la ilaashada ku jiro hadduu qofku markuu dambaabo toobadii ay ku jirto haddii dambi dhaaf aad alla weydiisan jirtay uu ku jirto haddii daarta aakhiree dambe oo laga warwaraa qalbigaaga ay ku jirto malagu marka uu qalbigaaga tuujiyo wax wacan baa ka soo baxaya su'aasha ayaa lagugu fududaynaya sakaraadkaa lagugu fududaynaya qabriga ayaa daaqadana lagaaga furaya ciqaabka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa najaynaya عدديسا إلهي سبحانه وتعالى كادمينيا نارتا أيا ألا كابد بادينيا لذلك وحقيريودي وقولك بناتو أمهات الخير أم شيمة ولا لها كمدا
oo gabdhaha duruusta ku taxan baa aabaheed wuxuu ku geeriyooday Holland. waxaa kaloo geeriyooday dad fara badan oo maartay muslimiina. waxaa geeriyooday cali khaliif galeydh oo ku geeriyooday magaalada jigjiga. waxa weeyaan waxaa ku geeriyooday magaalo kasta maanta inagoo joogno muqdisho, hadday tahay maraykan, hadday yurub tahay, hadday afrika tahay, hadday asia tahay, dadka soomaaliyeed oo qura ee maanta hoyday ee mawdku inaga qaatay tiro iyo cadad ma leh. tiro iyo cadad ma leh. wuu ina gurayaa. adduunka qaar baa ku soo biiraya, qaarna way ka tegayaan. waxa weeyaan dadka tegaya ilaahay subxaana wa tacaala qofkii wanaag la taga ee ilaahay isagoo uu raalli ka yahay u noqda faqad faas, kaas baa liibaanay. sidaa daraaddeed geerida inaynu isxasuusino oo malaa'igta ina oofsanaysaa waxa ay kula kulmayso qofka, waxay qofka kula kulmayso inaynu isxasuusiniyo dadku noocyada yihiin waa shay aad iyo aad u daruuriya oo lagama maarmaana. maxaa yeelay ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kasta oo iswaasha geerida way dhadhaminaysaa. wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama, qof walba ajarkiisiina waxaa loo oofinayaa qiyaamaha. qiyaamuhu 2 jeer buu dhacaa. qofka marka la oofsado ee qabriga la geeyo qiyaamihiisi wuu dhacay. qiyaamo kale oo qabrigaa ka dambeeyo dadkao dhan lasoo saarayana iyana waa qiyaamaha labaad. marka inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. haddii qiyaamaha soke ee qabrigaagu noqdo xufratun min xufari niiraan, meel ka mida goobaha naarta lagu huriyo, qiyaamahaagii olreedi wuu kacay. abaalkaagiina qabrigaad ku helaysa isagoo naara, waalciyaadu billaah. lidaalika haddii ilaahay qabrigaaga uu ka dhigo maxaan ku dhaha rawdatun min riyaadi iljanna, beeraha ugu udgoon hadduu qabrigaaga ka dhigana waxa weeyaan waad liimaantay, faqad faas. lidaalika baa ilahay wuxuu yidhi faman suxsixa can innaar, markaad geerida dhadhamiso axadka laga dheereeya naarta oo wa udkhila aljanna oo jannada la geliyo faqad faas, wuu liibaanay. qof waliba qofkii ka geeriyooday oo mushayma maanta aabbaheeda Holland ku dhintay oo maxaan ku dhahdaa maaragtay geeriyooday bay maaragtay ka ooyeysaa. haddii uu jannada galo faqad faas. dadku cali galeydh bay maaragtay cali khaliif galeydh oo nin gaalada iyo dhaqanka xunxun neceb oo nu khayr ku ognahay oo aanaan xumaan u rajaynayn wanaag mooyaane, waxa weeyaan maanta haddii uu qabrigiisa wax wacan u sii yaallaan, taas baanu ilaahay qof kastoo inaga dhintay aanu u rajaynaynaa, alla unaga tuugaynaaye faqad faas. haddii naarta laga dheereeyo faman suxsica can innaar wa udkhila aljanna faqad faas. ilaahay baana maaragtay qof walba xogtiisa og, ilaahay baa xisaabihiisa gacanta ku haya. qofkaasuun baa liibaanay baa layidhi. qofkaasoo qura ayaa liibaanay. wama alxayaatu dunya baa layidhi. adduunyadana ku dhawaqteenna maaha ilaa mataacu lquruur, wax idin dagaaya oo idinku kedinaya mooye wax kale maaha. adduunyadu cunto macaano intaad cuntay kadibna maaragtay aad ka tagtay mooye wax kale maaha. adduunyadu musqul adigoo dhibaataysan intaad gashay ilaahay wixii qashin kugu jiray raaxo aad ku darantay ood ka soo baxday mooye wax kale maaha. adduunyadu nin maxaan ku dhaha gabadhu jeceliyay intuu caawa aroosay, arooskii habeenkii la raaxaystay mooye wax kale maaha. adduunyadu gabar ninay jeceshay intay maaragtay guursatay la raaxaysatay mooye wax kale maaha. adduunyadu yacni waxaad jeceshay malab ama macaan yaroo dhadhamisood farta mooyaane adduunyadu wax kale maaha. marka geeridu kuu timaado waxaad ka xasuusanaysaa adduunyadii. marka la dhaha kam labistum fil ardi cadada siniin, adduunkii intay leg baa ku raaxaysanaysaan. ilaahay baa yidhi wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur, intay leg baa adduunyada ku raaxaysanaysaan. marka la yidhaahdo kam labistum fil ardi cadada siniin, intay leg baa adduunkii joogteen, qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm, taluma maalin baanu joognay mise maalin barhkeed. waa sababtaan u leeyahay adduunyadu guri aad gashood ka soo baxday mooye wax kale kama duwana. markuu sakaraadku kuu yimaado ciddaad ahayd, intaad da' soo jirtay, intii maxaan ku dhaha carruuraad soo dhashay, intaad shaqaysatay, intaad cid maxaan ku dhahdaa maaragtay aad la faraxday, intii muruku soo martay, wax allaala wax adduunyadii kaaga hadhayaa ma jiro. saacaddaa iyada ahay malagu kuu yimaado, sida uu ilaahay kuula macaamilo
ayuunbaa ka ansaxa. adduunyadii waxay ahayd yani maaratay saacad ama maaratay yani waxay odhanayaan maaratay maa labithnaa maaratay adduunyadii maanaan joogin hayra saaca, saacad mooye wax kale maanaan joogin bay odhanayaan. allahu akbar. mar kale waxay odhanayaan bal anagu waanu dawaknaye yani kuwa wax tiriya ha la weydiiyo, sidaas bay odhanayaan. calaa kulli xaal ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qofku yani geerida masiibada geeridu waa masiibo, geeridu waa masiibo, qof walbana masiibadaasi way ku dhacaysaa. yani muuminiinta waxay masiibadaasi ilaahay subxaana wa tacaala markay ku dhacdo ee ilaahay uu oofsado waxay u noqonaysaa dhibaato, yani masiibo adduunyadii uu ilaahay kaga xoreeyo wixii culaysaystay. wuxuu gelayaa janno, wuxuu odhanayaa yaa ayatuha nafsu mutma'inna, naftii adduunka ku dhibaataysnayd ee maxaan ku dhahdaa xagga iimaanka xasilooneeday, irjicii ilaa rabbiki, rabbigaa u soo noqo, raadiyatan adigoo raalli ah oo alle wuxuu kuu diyaariyey raalli ka ah, oo mardiyatan ilaahay uu raalli kaa yaho adna raalli lagaa yahay, soo gal buu ilahay odhanayaa. fadkhuluu fii cibaadii, addoommadeyda waa wanaagsan ee qabriga ku jirta, qiyaamahana dariiqa fiican iyo kitaabka in midigta laga siiye sugayo ku soo biir. wadkhuli ljanna, jannada soo gal buu ilahay odhanaya subxaana wa tacaala. waa lagu soo dhowaynayaa. ahlu jannadu marka la oofsado ahlu jannada quburaha ku jira ayay la dabaaldegayaan, dadkii qaraabadaabay kula kulmayaan, markaasay odhanayaan adduunkii ka waran, hebel iyo hebel ka waran. qofku markuu maaratay qabriga la geeyo wuxuu soo calaacalayaa dadkii adduunka joogay. qur-aankii ku taalla ninkii la odhan jiray xabiib najaar, nin ambiyo ilaahay soo diray oo maaratay dadku ay maxaan ku idhaha xaqii ay sideen ay diideen ninuu gargaaray buu ahaa. suuratu yaasiin buu ku sugan yahay. markaasaa wuxuu yidhi war maxaan ku dhahdaa rusushan ilaahay idiin soo diray, war maxaan ku dhahdaa u kaalmeeya. wa jaa rajulun yascaa min aqsa almadiina baa layidhi, nin ordaayo oo magaalada meesha fog ka yimi oo maaragtay ambiyadii ilaahay soo diray gurmad u ah, oo gaaladii doonaysay ambiyada inay layse ka dhicinaya, oo maxaan ku dhahdaa gartii ilaahay naqayaa yimi baa layidhi. hadda bal fiirso. markaasaa yani waa qisa dheero suuratu yaasiin ayaa ka akhrin doontaan. aakhirkii way dileen markii la yidhi miyaad rumaysantahay nimankan, oo uu yidhi maxaa dhacay, maxaanu rumayn waaye, amar xagga rabbi ka yimi iyo rusul la soo diray oo xagga jannadayna qabadsiinaya, maxaan uga hadhayaa buu yidhi oo ii sugnaaday. way dileen. markay dileen baa markiiba jannadii waqiila dkhuli ljanna, jannada gal baa layidhi. markii ay maaratay malagii oo oofsaday bay ay maaratay dileen ee sababtii gaaladu ay u noqdeen, jannada gal baa layidhi. markaasuu jannadii daf yidhi. markaasaa markuu jannadii iyo raaxadeedii arkay ayuu soo calaacalay. qaala yaa layta qowmi yaclamuun, yani qoomkii buu soo calaacalaya. waar hoogoodii iyo shallaytadooda may ogaadaan bima maaratay yani maaratay qaala yaa layta qowmi yaclamuun bima maaratay maxaan ku dhaha kafara lii, wuxuu siduu ilaahay iigu dembi dhaafay war may ogaadaan. oo uu ilaahay ga dhigay wajacalanii min almukramiin, inuu ilaahay kuwa la karaameeyey ee jannada lagu karaameeyey martisoorka iyo karaamada iyo jannada weyn loo siiyey, inaan kuwaa ka mid noqday maaratay yaa tolkay u sheega. war may tolkay naarta iska daayaan. qofka muuminkii xaasid maaha, gaalka iyo munaafiqu waa xaasid. wuxuu jecel yahay qof waliba adduunyadan, dadku tartan bay ugu jiraan, leanna adduunyada gabadh qurux badan qurux uma ogola, nin siyaasi siyaasad uma ogola, ganacsatadu isma ogola, dhalinyaradu isma ogola, kuwa kubadda ciyaaraya isma ogola. adduunyada walciyaadu billah dadku xasad bay isu yihiin, leanna adduunyada shaydaanka iyo naftiyo shahwaad baa ku sugan. naf guulu ogoli ma jirto. amaa muuminiinta iimaan bay kula jecel yihiin, adduunka inaad joogto, inaad alla u hoggasataa bay jecel yihiin. qabriga markay galaan ay wanaag arkaanna dadkii dariiqa xumaanta soo hayee adduunka joogay bay usoo calaacalayaan. yaa layta qowmi yaclamuun bima kafara lii wajacalanii min almukramiin buu xabiib najaar leeyahay. war tolkay yaa u sheega, war dariiqa xunay hayaan yaa ka duwa, warka naartay ku soo socdaan yaa ka duwa, war jannadan cadiimka yaa u soo duwa, war ilaahay raalligelintiisa yaa u keena. dadka maanta culimada ah ee idinku qaylinayaa dadku ugu necab yahay. waxay maaratay laanna shaydaanka ayaa cadowa, qur-aanka ayay cadow yihiin, sunnadii cadow yihiin, in wanaagga lagu idhahdo u soo barh bay dadku cadow yihiin, xumaanta ayay jecel yihiin.
waxay jecel yihiin inay maxaan ku dhahdaa niikiyaan, waxay jecel yihiin muusiga, waxay jecel yihiin qafladda, waxay jecel yihiin balwadda, waxay jecel yihiin qaadka, waxay jecel yihiin isqaawinta, waxay jecel yihiin cayda, waxay jecel yihiin iscolaadinta, waxay jecel yihiin qabiilka, waxay jecel yihiin qafladda, waxay jecel yihiin waxyaabaha shaydaanku u adeegsado oo xaqa ilaahay uu kaga iilo. dadka in yar baa jecel xaqa. ilaahay waxaanu weydiisanaynaa dadka inuu xaqa jeclaysiiyo. ilaahay waxaanu weydiisanaynaa dadka inuu ilaahay soo hanuuniyo. lianna dadka maxaan ku dhaha qofka dadka muuminiinta islaamku dadka hanuunka ayay la jecel yihiin. qur-aanku hanuunka ayuu inala jecel yahay. ilaahay baa mar walba ina wacdiyayo leh walaa tahinuu war ha daciifina oo walaa taxsanuu war ha murugoonina haddaa muuminiin tihiin wa antum laclowna idinkaa sarraynaya adduunka. aakhirana wax wanaagsan baa idin yaalla ee ilaahay ku kalsoonaada. in kuntum haddaa tihiin muuminiin war haddaa muuminiin tihiin war waxaa la leeyahay maaratay war adkaysta. war haw maaratay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu war daalimiinta haw leexanina fatamasakumu naar baa idin taabanaysa. war maxaan ku dhahdaa kuwa daroogada cuna, kuwa maxaan ku dhahdaa xumaanta wada, kuwa raggu inay isku kaaftoomaan idinku yeedhaya, kuwa dumarku inay idinku kaaftoomaan idinku yeedhaya, kuwa shareecada tuuraya, kuwa qaanuunada jinsiga wata, kuwa xumaanta dhaaminaya, kuwa ceebta wada war haw leexanina baa leeyahy. walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu war kuwa naarta maaratay xaggeeda albaabadeeda taagan haw leexanina. maxaa yeelay fatamasakumu naar baa idin taabanayso idinku yeedhayaan. war nebi maxamed soo raaca baa la leeyahay in yamsaskum qarxun war hadday dhibaata diinta idinku gaadho faqad masa alqawmu qarxun ummadaha kale ee aan diinta haysanba shaydaanka ayaa dhibaya. raaxada adduunka qofka shaydaanka la socdaa uu shaqaysanayo oo dhami waa dhibaato weeye. qofku hadduu kalaabka aado oo khamro uu soo cabo daqiiqada miyirkiisu maqanyi buu raaxa dareemayaa. marka ay dhiiggiisa ka baxdana ciqaab iyo wuxuu dareemayaa alkohooshu dhibtii ay maaratay beerkiisa iyo kelyihiisa iyo naftiisa iyo dhaqaalihiisa iyo dadnimadiisa iyo shahwadiisii ay u geysatay. haddaad aado kalaabka ood gidiga caawa maaratay niikiso intaad muusiga iyo shaydaanka iyo camalkiisa aad ku jirtaad faraxsan tahay. markaad caawa ka soo baxdee 5 salaadoodba ay ku dhaafaan ee xumaanta subaxii aad soo toosto adigoo qalbigaagu ilaahay ka fog yahay oo waxsha dareemaya iyo maxaan ku dhahdaa inaanad habeenna farxin oo dhibaataysan ayaa dareemaysaa. leanna naftu waxay ku raaxaysataa ilaahay dikrigiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub. qofku intuu alla xusee alla u dhow yahay baa ilaahay qalbigiisa dabciyaa, ilaahay diintiisa suubiya, wejigiisu nuura, iimaankiisu kor u kaca, tayadiisu ay wanaagsanaataa, ilaahay xoolihiisa barakeeya, maalkiisa barakeeya, ubadkiisa barakeeya, ducadiisa la aqbala, camalkiisu waalidkii iyo dadkii ka horreeyay anfaca, ubadkiisa iyo kuwa dambana anfaca. ilaahay subxaanahu watacaala ummadoo dhan jeclaysiiya. quluubta addoomaha ilaahay baa xukuma. inta aad ilaahay caabudaysay alla jeceshahay boo alle quluubta dadka wanaagsan ku ogolaysiinaya. haddaad si xumaan ka shaqayso yaan laguba arkin. haddaad doonto god hoostii ku jir waxaa tahay ilaahay baa og. quluubta dadka ilaahay baa kula colaysiinaya. gaalka aad isleeda iska dhaadhici aakhirka iyagaa kula coloobaya walciyaadu billah. lidaalika qof ilaahay ku dhow ayaa adduunka liibaanay. iska ilaali. marka ilaahay wuxuu yidhi watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. adduunku waa ayaamo. haddii imtixaanku uu kugu adagaya alla ku sabir. haddii lagu barwaaqayana alla ku sabir. barwaaqada allaha kaga kufriin. haddii lagu imtixaamad xanuunsanaysa ama foqor ama dhib lagugu imtixaamana ilaahay maaratay ha ka tegin. labaduba waa imtixaan. alladii khalaqa almowta waalxayaata. geeridiiyo noloshaba ilaahay baa abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala. inuu ilaahay inagu imtixaamo keennee camal wanaagsan la imanaya. camalkaaga ma dhibka kugu dhacay miyaad alla ugu sabirtay? camal wanaagsan buu kuu noqonaya. xoolaha lagu siiyey iyo maraykan in lagu geeyey inaad ingiriis tagtay iyo in 10 baasaboorood heshay oo dhoofto oo maxaan ku dhahdaa maaratay kelmadaha ingiriis iyo dadku waxay ilbaxnimada u arkaan ilaahay inuu kugu imtixaamay. ilaahay wuxuu ku eegayaa bal inaad adduunyada raacdo, inaad gaalada raacdo. ilaahay wuxuu ihi gaalada yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya. xayaatadan adduunyaday waxu haystaan wahum can ilaakhirati hum gaafiluun. aakhira way maaratay way ka indhalaayihin way ka dhegalaayihiin. dabaqyada baarliin ku yaalla iyo washington haddii lagu geeyo ha u qaadan inaad xoog iyo xeelad ku tagtay. imtixaan baa laguu geeyey. waxaa lagu leeyahay
ilaahay ku abuurtay iyo qur-aankii iyo nebi maxamed iyo diintii suubaneed ee mustaqbalkaagu ahaa iyo gaaladani adduunyadan ay maaratay ay maxaan ku dhaha marmarooriyeen oo aanay cidi kaa xigin haddaad muslim noqonaysood wax wacan maaratay ka tabcanayso bal inaad imtixaankaa ku dhacday in kale ayaa la eegaya marka haddii lagu imtixaamana waa imtixaan haddii lagu maaratay oo maaratay dhibaato iyo aad markaa xanuun iyo foqor dareemayso haddii maal iyo adduun iyo wax kasta oo lagu siiyo ama wasiir lagaa dhigo ama ganacsade ama gabadha ugu quruxda badan ama qurba aad tagto ama wax kasta oo dadku maanta adduunyada ay u arkaan haddii gacanta lagu geliyo macnaheedu maaha in maxaan ku dhahdaa aad cidla ka heshay waa lagu imtixaamaya alladii khalaqa almawta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala suuratulkaaf jumco kasta waa la akhriyaa maxaa loo akhriyaya ilaahay baa wuxuu yihi adduunyada waxay tu inooga sheegaya inaa jacalnaa maartay maca alardi ziinatan lahaa buu ilaha yidhi adduunyadan gebigeedaba waxaanu ka dhignay waxa ogadeeda yaalla ziinatan lahaa qurux dadka ku kadisa sida gaaladaba ilahay u yidhi yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati muqaafiluun ba ilahi wuxuu yidhi inaa jacalna maa cala alardi ziinatan lahaa ziino iyo qurux baanu uga dhignay linabluwahum ayuhum axsanu camala maxaa quruxda looga dhigay inaanu imtixaano koodii camal fiican la imanaya ma ziinaday maaratay ku lumayaan ma waxay ku lumayaan ragga maaratay wax moodaya ma dumarka wax moodayay ku lumayaan ma xijaab la-aan bay ku lumayaan ma gabdhaha maxaan ku dhahdaa historyga facebooka maaratay heesaha iyagoo niikiniya isku soo wada duubaya iyagoo maaratay ahlu khayr ah oo maaratay khadiijo iyo caaisha iyo xafsa iyo saxaabadii iyagoo maaratay lehel ah iyadoo diintuina soo gaadhay iyadoon maki islaamin oo saxaabadii kasoo dashay badda cas ay maxaan ku dhahdaa innaga islaamnimadu inoogu timi oo sunni ah oon shiico iyo khabiisnimo iyo diin la-aan iyo masiiba aan weligeed bay noo soo tallaabin oo diinta asal u leh ma in facebooka iyo instagramka iyo tiknolojiyada reer galbeedka iyo maxaan ku dhaha dhaldhalaalkeeda miyaad diinta kaga tegaysaa wadaadada miyaad ku caayaysaa ma mulxid baad ku noqonaysaa ma waxaad ku noqonaysaa maxaan ku dhaha calmaani ma diinlaawaad ku noqonaysaa maxaan ku dhaha ma adduunye cusub iyo riddaad maaratay ayaad gelaysaa mise diintaadii baad ku sabraysaa qur-aankaad baranaysaa sunnadaad baranaysaa qofka aqoonta diintaa lihi isaga ayaa aqoonta maadigaa ugu fiican isagaa jaamacadda ugu fiican inuu adduunyada ka faa'iidaysta isagaa ugu fiican inuu wakhtiga ilaaliya isagaa ugu fiican inuu shaqaysto sharaf yeesha isagaa ugu fiican inuu hogaamiye fiican noqda isagaa ugu fiican leanna ilaahay hidaayadiisa ayaabuu gacanta ku haya wa anna haadii siraadii mustaqiiman jidkaygi waa kaa toosane raaca buu ilahay yidhi fatabicuuhu isaga raaca waa ku badbaadaysan aakhiriya adduunkaba walaa tatabicuu subula dariiqada yayaree shaydaanka ha raacina fatafaraqa bikum can sabiilihi jidka ilaahay bay idinka tuurayaan gaalada ninka ugu lacagta badan li isagoo bilyaneera buu isdilayaa leanna raaxa ma haysto lacag aan dariiq saxa loo marin raaxa laguma helo zino iyo xumaan dariiq khaldan loo maray raaxa laguma helo maxaa la yidhaha daroogo iyo alcohol jirkaaga aad ka buuxisay si aad raaxa u hesho raaxa laguma helo dariiq khaldanood martay raaxa laguma helo tuugo raaxa laguma helo wasiirnimo iyo madaxnimo raaxa laguma helo mar kastood adduunyada iyo shaydaanka raacdo adduunkao dhan waxaa kaaga filan ciqaabka rabbi adduunka uu kuu keenayo ibliisku wuu ku hoojinayaa ibliisku inaad raaxaysata ma rabo ibliisku yacnihii mar walba wuxuu doonayaa tallaabada ugu fog inuu ku geeyo ninka la yidhaahdo ibnu jawsi abufaraj ibnu jawsi kitaabka la tabliisul ibliis baa qiso ayuu soo raraa mucjiza ah inaanu shaydaanku marnaba raaxadaada rabin gaalka ugu xun ee ugu khabiisan ee kaniisadda taga ee calaqal faamiliga leh inuu faamiliga ka burburiyo oo kaniisadda ka kaxeeyo oo uu makhnuud iyo khaniis ka dhigo oo aakhirkana uu isgowracaa buu la doonaya bal qisadaa u fiirso waxaa la yidhi nin raggii maaratay ruhbaanta ahaa aan cilmiga badnayn baa waxaa la yidhi laba wiiloo dhalinyaro reer bani israa'iila baa gabadh bay la walaalahaayeen maxajabada waxay raaceen jihaad bay dagaal bay aadeen nebiga sala allahu alay wasalam markay saxaabadu u yimaadaan ee nin uu yidhaahdo waxaa laygu qoray jihaad reerkaygina maxaan ku dhahdaa maaratay way xajaysaa nebigu ninkii maaratay reerkiisaan cid kale haysan inay iyadoo safraysa wuxuu orado maaratay gabadhaada la xaj nin kale wuxuu yidhi wan jihaad baa laygu qoray labadaydii waalidna cid kale ma haystaan nebigu wuxuu yihi orado labadaadii waalid ku jihaad mar walba muhiimadda ayaa la egaa qofku hadduu diinta yacnihii mowqifkii sax ahaa uu ka baydho waa la imtixaama
labadii wiilba gabadhoodii yaradii cadradda ahayd ee iyagu ay mas-uulka ka ahayn halkay iska qaybin lahaayeen midna iyada u soo hari lahaa midna uu jihaadka aadi lahaa labadoodiiba jihaadkii bay iska raacaan waxay yidhahaan gabadheena iyaynu kaga tagnaa waxaa la yidhi nin baan kaga tegaynaa bay yidhahdeen nin baan kaga tegaynaa bay yidhahdeen ninkaynu kaga tegaynaa ayuu noqonaya waxay dhahan subxaan allah miiga go-ay raallehada in yar raallehada qofay waay raallehada may maqashaan may maqlaysaan bes maasha allah bes maasha allah qof wacayaan leeyahay iga jooji 1 minute ibnuljawsi wuxuu qisadii buu keenay labadii wiil jihaadkii bay raaceen ninkii adduunka ay islahaayeen waa taqi oo magaalada joogo raahiba yacnii nin suufiya oo ilaahay caabudo oon cilmi lahayn qofka aan diinta baran ee raahibka ah mutadarif u noqdaa waa sababta dadkaan diinta barani maanta iyagoo boqolaal kumaankun qof dilay ay aaminsan yihiin inay alle kuugu dhowaanayaan wax kale ma hayeen jahli baa haya waa sababta qof muumin ah oo ilaahay qur-aankii sunnada nebi maxamed siiyey oo shiici u noqonayo jahli baa haya bacda shaytaan waa sababta qof muslin ah oo raaxa iyo ilaahay la nool oo shaydaan iyo gaalo raacayo jahli baa haya walciyaadu billah ninkii bay kaga tageen waxay dhahan gabadhayada halkaa ku jirta ee cadradda ah ee makhabyadda ah annagu jihaad baanu aadaynahay kasii warhay halkeeda ha joogto waxay cunto cuni lahayd zoray raallihaada dhimale ana allahu akbar raalli ahaada waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi gabadha nooga sii warhay bay yidhaahdeen gabadhaa nooga sii warhay allahuma mustacaan gabadhii buu ka sii warhayey waxaa ku dhacay shaydaankiibaa u yimi ile qofku waa jaahil haddaad xeeladda shaydaanka haddaanad aqoonin haddaad xeeladda shaydaanka aqoonin waxa weyaan shaydaanku meel walba uu kaaga imanayaa shaydaanku wuxuu jecel yahay meeshaad markaad joogto shaydaanku wuxuu doonayaa qof waliba wuxuu yaqaanaa nuqdada dacfigiisa shaydaanka u fiirso ilaahay shaydaanka wuxuu abuuray nebiyullaahi aadam ka hor aadam iyo shaydaanka kee horreeyey shaydaankaa horreeyey lidaalika axaadiista saxiixa rasuulka sala allah alay wasalam ee maarata qisasul ambiyaa ku soo aroortay nebiga sala allahu calayhi wasalam 40 sannadood oo aadam uu isagoo dhoobo ah ilaahay subxaana wa tacaala uu maaratay dhoobo ahaa ayaa malaa'igta iyo shaydaanka oo malaa'igta la joogo jannada ku jira iyo jinka oo inaga horreeyey baa waxay arkeen aadan oo dhooba oo ilaahay abuuro gacantiisa ku abuuray 40 sano ayaa la dhigay jannada isagoon ilaahay noolayn subxaana wa tacaala markaasaa waa makhluuq cusub inuu yahay bay garteen way ka baqdeen shaydaan oo cadow ah laakiin malaa'igta iyo jinku ay markaa u qabaan inuu wax wacan yahay cibaadada daraaddeed uu cibaadaysan jiray waagii hore intaanu gaaloobin haddaad aragto wadaad inxiraafay
qof diinta ka gaaloobay wuxuu ayaa dariiqii shaydaanka walciyaadu billah. marka shaydaan oo camalkiisu uu qarsoon yahay laakiin sida daahirkaa wax fiican u eg ayaa marka kolba u tegi jiray. markaasaa wuxuu odhan jiray wallaahi innii lama tamaalik canhu, kan waxaan u malaynayaa anaa geed saari doona, kan waxaan u malaynayaa kii laygu fidnayn lahaa inuu yahay. waa shaydaan walciyaadu billah. wuu sii daraaseeyey. markaasaa wuxuu eegaabaa la yidhi wuxuu arkay in afka ilaa duburtu isu daloosho. markaasaa wuxuu odhan jiray malaa'igta iyo jinkii iyo ummadii inaga horreeyey ilaahay inagu imtixaamay intaan adduunkan la keenin anaa meelida ka saaraya ha ka warwarina buu odhan jiray shaydaanku. aakhirkii ilaahay waa kii aadam nooleeyey, waa tii maxaan ku dhahdaa laga dhigay ka ugu karaamada badan leh, waa tii malaa'igta loo sujuudsiiyey oo uu shaydaan ku jiro. waa kii shaydaan diiday, waa ki yidhi mid aad dooba ka abuurtay sujuudi maayo, adigoo aniga naariga abuuray. lianna shaydaanku jinkuu ka mid yahay, duriyadda jinkuu ka mid yahay, waxaana laga abuuray naar baa laga abuuray min billah. waa kii sujuudisi diiday walciyaadu billah. maxaan uga jeedaa? shaydaanku aadam wuu ka horreeyey, waxaanuu toobadda ku seegay inuu aadan xaasido. inta badan qofka shaydaanka la socdaana waa xaasid. wuxuu yidhi u sujuudi maayo aadan maxaa yeelay anaa ka khayr badan. aadan buu xaasiday calayhi salaatu wasalaam. amarkii ilaahayna wuu diiday. ilaahayna wuxuu ku xukumay alle inuu khaldan yahay. qof kastoo alle inuu khaldan yahay ku xukuma, qof kastoo camalka shaydaanka la yimaada, qof kastoo shaydaan raaca, qof kastoo alle wax weydiiya, laa yus'alu camaa yafcalu, alle lama weydiiyo wuxuu sameeyo. lianna addoommaynu nahay, waxaynu nahay khalqigiisii. wahum yus'aluun, inagaa wax layna weydiiyaa. qof kasta oo alle su'aal ka keena ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu shaydaanka naarta la geliyo. shaydaankii walciyaadu billah sidaasuu ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisii ku waayey. sidaasaa uu ilaahay ku yidhi fakhruj, ka bax jannada minha fa innaka rajiim, waxaad tahay mid ilaahay naarta lagu fogeeyey oo jannada laga tuuray. rajiim kii ilaahay lagu maartay naxariistiisa laga fogeeyey baa tahay. sidaas baa arlada loogu soo diray aadam iyo xawaa iyo maxaan ku dhaha shaydaankii iyo jinkii dhammaan adduunkan loogu soo diray. ilaahay ballan buu ayuu ka qaaday basharka oo dhan. fa imaa ya'tiyanakum minii hudaa, haddii hanuun idin yimaado. marka hore waa ogtihiinoo aadam iyo xawaa jannada waxaa sababa u noqday inuu ka soo saaro oo lagu imtixaamay oo la yidhi waa ibliis, cadow buu kuu yahay, wakaa sujuuddaadii diiday ha yeelin baa layidhi, jannada iskaga jir. automatically loogama soo saarin. sidaa daraaddeed siduu kolba xawaa iyo aadam ugu soo laalaabanayey ayaa wixii loo diiday inuu jannada sameeyo oo geed maxaan ku dhaha jannada alla ku beeray baa layidhi ha u dhowaan. aakhirkii geedkii bay cuneen. waa kuwii cawradoodu faydantay, waa kuwii ilaahay subxaana wa tacaala maryihii jannada iyo hugii iyo khayraadkay haysteen waa kuwii waayey. sidaasaa adduunka loogu soo diray. ilaahay farriin buu soo raaciyey. fa imaa ya'tiyanakum minii hudaa, haddii hanuun xaggayga iiga kan yimaado, faman itabaca hudaaya, qofka hanuunkaa soo raaca jannadiibuu duba helaya. falaa yadilu lumi maayo, walaa yashqaa shiqina noqon maayo. aayad kale falaa khawfun calayhim, murug iyo falaa khawfun calayhim, cabsi qofkaasi guudkiisu ahaan mayso, walahum yaxzanuun, mara murugoo doonaan baa ilaha yidhi. aan kusoo laabto qisadii ibliiska. ninkii caabidka ahaa ee aan diinta aqoonin, shaydaanku 2 geed buu kaala boodaya haddaad aqoon diineed lahayn. haddaad si kasta caabid u tahay, haddaad si kasta sujuuddu ay wejigaaga u madoobayso, shaydaanku qof caabidoon cilmi lahayn 2 geed buu kala boodaa. quruur buu kugu ridayaa. wuxuu konaya dadkaba adaa ka wanaagsan. wuxuu kugu ridayaa dadku waa wada gaale laa. wuxuu kugu ridayaa hebel muxuu kuu sheegi karaa walciyaadu billah. ninkii raahibkee lagaga tegey shaydaankii baa u yimi. ila shaydaanku waa cadow. qof walibana nuqdata dacfigeeda ayuu ka faa'idaystaa. haddaanad dumarka jeclayn weligii shaydaanku dumar kugu sallidi maayo. muxuu kugu sallidayaa? waxa laga inaad siyaasadda jeceshahay, siyaasaddu ku qabadsiinaya. haddaad siyaasadda iskeedu necab tahay
oo aad yacnihii jeceshahay maxaan ku dhaha balwadda xagga kalaabyada tag buu koranaya kaali fanaan noqo qofku doonayo inuu shaydaanku simbiririxiyo ama daroogo ama qaad ama uu ku sallido halkee laga soo galaa war kaali dhalinyarada la soo cawey buu koranaya waar meeshan waa laga heesaa waar meeshan guriga hawey maartay guriga dhaqankaa la yidhahdaa habeenkii baa lagu caweeyaa waar meeshan gabdhaha maartay oo dhan baa yimaada shaydaanku yani waxaad jeceshay hadduu aanad xaggaa u furfurnayn ama xagga heesaa u furfurnayn ama xagga siyaasadda u furfurnayn ama xagga ganacsiga iyo adduunyada u furfurnayn meel kalood u furfurantay buu eegaya waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay maxaa la yidhaahdaa maxaan ku dhaha xagga qabiilkaoo marka reerkiina lasoo qaado aad jircoonayso geesinimada iyo balaayada kugu jabaysa ila waa dulmi walciyaadu billah marka reerkiina lasoo qaado haddaad jircoonayso waad bugtaa caqiidadaada way hallaysan tahay annaasu min aadam dadka aadam baa laga abuuray wal aadamu khuliqa min turaab aadanna ciid baa laga abuuray raysiis baa tahay raysiis maaragtay xun baa tahay nebigu sala allahu caleyhi wasalam yani wuxuu ku sheegay qofka yani qabiilkiisa maaragtay marka lasoo hadal qaado qalbigiisu dararaayo qof buko oo aanay cibaadadiisu sax ahayn oo ilaahay sokadii wax kale ictimaadaya buu rasuulku ku sheegay rasuulku wuxuu ihi dacuuha fainaha muntina war waxaasi waa wax qurunoo uraya iskaga tega buu ihi sala allah alay wasalam xaarwalwaal weeye qofku waa xaarwalwaal baalka maaratay doorshaan bay reer koonfureedkuna yidhahdaan marka calaa kulli xaal shaydaanku qof walba meel buu kasoo galaa ninkan dacfigiisii buu garanayay inuu jaahil yahay buu garanayay shaydaankiibaa u yimi ninkii raahibka ahaa waxbuu ku yiri war gabadhii lagaaga tegey ee yaraydee dhowriyo 10 jirka ahayd ee cadradda 16 jirka ahayd miyaad maalin qurana soo salaamahayn haddii iyagu waxay dhahdeen war dushaasun ka warhay wuu soo baxayo albaabkeedii buu soo gargaraacay salaamu calaykum wacalaykum assalaam ma fiican tahay waa fiicana maalintii intaas ila xogaa iimaanuu leeyi maalintii intaasuu kaga laabtay maalintii labaad baa shaydaanku wuxuu ku yiri shaydaan baa la hadlaya waxaa la hadlaya inuu shaydaan yahayna garan maayo ila shaydaanku yajri axadakum min majri dam haddaad aragto shay macaasiya adoo doonaya waxaad dabada kaa wadaa waa shaydaan waxaa kula hadlayana waa shaydaan you need to understand maalintii dambu shaydaanku wuxuu ku yidhi war gabadha codkeedunbaad maqlaysa horta maad albaabka tiraahid iga furo aad tiraahid bal iska waran haddana maalintii labaad balog soo garaacay ma wanaagsantay bal albaabka iga fur inaad nooshayin kalaan ku arkee albaabka ka furta ay waxay u aragtaa nin dee qof weyno caalimaho taqiyaho yana waa ilma yar waa gabadh yar 16 jira albaabka ka furta waa la fadhiistay waa la sheekeeyey maalintii kale shaydaankii war maad cuntay iyo hadiyad u geysid wuxuu wadaba rasuulku muxuu yidhi laa yakhluwanna axadakum biimra'a ilaa wa shaydaanu saalisahuma mid yani nin labi gabadh keligeeda oo dhalinyaro ah ama maxaan ku dhahdaa loo hunguroon karo ilay dumar oo dhan looma hunguroodee laa yakhluwanakum maartay laa yakhluwanna maartay axadakum biimra'atin gabadh yani maartay weli nool oo naftaadu ay dooni karto waxaa lagu yidhi khaali hala noqon idinkoo laba ah meel cidlo ah hala gelin baa lagu yidhi ama caalim ahaw ama sheekh ahaw ama shariif ahaw saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam fadli ibni cabbaas oo saxaabi ah oo nebiga inaadeerkii rumo ah oo nebiga xagga dambe hashiisa saaran xaajatul widaac 83 maalmood buu nebigu sii noolaa markii ay ka tegeen musdalifa ee ay mina ku socdeen ayaa gabadh la odhan jiray khascamiya oo gabadh yaroo dhalinyaro qurux badan fadli ibni cabbaasna aad buu qurux badnaa labadubana dhalinyaro ahayn oo 12 jirray ahaayeen mid waliba markaa kacay oo gabadhuna ay maartay gabadh la guursan kara tahay gaaladu imika shaqooyin kale wadaaye gabadh dhadigahoo da'dii lagu guursan lahaa tii ugu fiicnayd joogta iyo wiil jooga da'dii ugu maartay fiicnaa ee testosteronkiisa iyo raganimadiisa iyo gabadha gabadhnimadeedu markay ugu sarraysay qariisadoodu ayay nebigii u timi gabadhu marka ma sidato niqaab laanna marka la xajaayo niqaabka dumarka loomana ogola inay galoofi xidhaan wejigeedu wuu bannaayey markaasaa nebigii isagoo la jooga baa isagoo saxaabi jaliila buu gabadhii fiiriyey gabadhiina way fiirisa ila waa dad yani waa positive iyo negative dhalinyaradu wayse soo jiidanaysaa ceeb maaha diin la-aan maaha nafta ayaa doonaysa waa shahwo ilaahay kugu beeray haddaad shahwadaa weydo reer samayn maysid oo gabadh shukaansan maysid gabadhuna nin shukaansan mayso laakiin waa wax loogu talagalay in la kontaroolo oo sharciga la waafajiyo qofku inuu sharciga waafajiyaa baa la doonaya haddaad weydo waa nicmo kaa maqan haddaad daba gasho oo aad maxaan ku dhahdaa halis ku gashana
وحوين وا شيطان يا عمل إبليس ونارتك وقبت سينايا لذلك أمد ووسط سيدي بولا شيكي والعياذ بالله ما دام وخالي للنقضي شيطان ما دحدي سو غلي iyadii buu jeclaysiiyayna uu jeclaysiiyay wal billah wixii dhacay baa dhacay gabadhii markiiba way ureysatay waa ninkii amaanada looga tagay waa ninkii diin la baday waa ninkii khayr la baday waa nin ibliis baa ka guuleystay maxaa yeelay dariiqii ibliiskee loo diiday ayuu maray wuu lugo'ay wal billah ilaahu ana lugoyn ilaahu goor xun iyo goob xun iyo waqti xun iyo martay arin xun ilaahu rabbi ha nagu sababin allah ha nagu sababin ilaw ada awooda iskale ilaw qulubta adoomuhu faraha laba faroodod leedahay bay allow ku jiraan saad noo sheegtay yuqallibuha kayfa yasha ilaahay sidoo doonaa buu gedgediya ilaw qalbigayga saxun ha u gediin ilaw ibliis ka xifdi ilaw kuwa naarta magacyadooda lagu qoray ilaw hanaga yeelin ilaw kuwa jannada magacyadooda ku yaalaan ee sababta jannada ay ku galayeen ilaw aad u fududeyso ilaw naga yeel ilaw sababta naarta lagu galo ilaw ha noo fududeyn ilaw macsida ha noo fududeyn ilaw meel xun naga dhowr ilaw waqti xun naga dhowr ilaw sabab xun naga dhowr ilaw saymaha naarta ku galay naga dhowr gabadhii baa ureysatay wali jihaadkii baa lagu maqay ibliiskii baa haddana qalbigiisa la hadlay war ninkaagii weynaa ee sheekhaha ceebowday war maxaad samaysaa wuxuu ku yiri dil intaanad ceeboobin adduunyada ku ceebowday dil waa uu yimid dilay qalaf haddana war xagaad ku aastaa isagii baa la hadlaya shaydaankii baa la hadlaya waxaad samaysaa meel dibadda xabaal bilaash ka samee u sheego waxaad tiraahdaa meeshaasaan ku aasay kow gurigaaga aad ku nooshahayna kursigaaga hoostiisa intaad qodo geli meydkeeda sidii buu yeelay gurigiisii uu ku noolaa buu xabaal uga qoday waa ku aasay meel dibaddana xabaal bilaash buu ka sameeyey wiilashii baa soo noqday gabadhaydii meeday gabadhii way xanuunsatay dhibaataa ku dhacday way dhimatay martay waan aasay xabaashi buu geeyey rasuulka yidhi xadithuu bani israa'iil wala xaraj reer bani israa'iil ka sheekeeya wax dhibaatay kuma sugnaa waman kadaba calaya ninka aniga igu been abuurta mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waa qisas ay culimmadu soo arooriyaan waxay ku soo arooriyaan tafsiirka qur'aanka ibnu jawzi baa kitaabkiisa tilbiisul ibliis ku keenay nabigaana yidhi reer bani israa'iil qisaskii dhacay ka sheekeeya aniguse waxaanan idinku odhan hay nisbaynina allahu mustacaan wiilashii ayaa habeenada ka mida riyooday waa ku qanceen in gabadhoodii dari lahay u dhimatay way ku qanceen mid baa riyooday shaydaankii baa u sheegay shaydaanku baa u sheegay wuxuu yidhi oo ku riyooda gabadhiinii xabaashaasi waa cidla kuma jirto bal qodo oo tijaabiya haddaa weydaan meydkeedii ninka weydiiya meeshuu ku aasay gurigiisay ku aasantahay subaxii buu inankii soo toosay walaalkii buu tegey war xalay waan riyooday haye waxaan ku riyooday meesha uu yidhi waa xabaashii gabadhiin inaanay xabaashii ahayn ina keen maxaa inaga lumayaa waa qodeen meeshii bay waxba ka waayeen iyaga iyo faamiligoodii baa ninkii qabtay waa ku dilayna baan haddaad noo sheegin gabadhii halkaad ku aastay guriga ay ku aasantay gurigii baa laga baaday meydkii baa lasoo saaray waa qirtay isagu inuu dilay bal shaydaanka war waa la qisaasaya baa layidhi ilaahay muxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab hadduu nin gabadh dilo waa loo dilayaa gabadha iyo ninka dhiigooda waa isku mid way siman yihiin umuuraha dhaqaalaha looga kala badiyeyna marka horaa ninka mas-uuliyadda la saaray gaaladu waxay idinku tiri oy gabdheheenna hay-aadka iyo injooyada gaaladu wadato ee la yidhaahdo xerakasaarka muslimiinta xijaabka lagaga dhiga gabdhaha ee diinta loola colaysaya la dhahda ilaahay baa idin khiyaameeyey waxaa lagu yidhaahdaa maxaa dhaxalka wiilka iyo ka gabadha kala yareeyey waa arrin dhaqaale maaha arrin inaanay gabadhu nin wiilka la sinayn marka horeba raggaa dowrkoodii ka baxay oo aakhiru zaman baynu maraynaa dumarkaana adduunka mas-uul ka noqon doona laakiin aslan marka hore mas-uuliyadda iyo diintu ay jirto wiilku gabadha ay walaalaa yihiin isagaa nafaqaynaya hadduu aabaheed dhinto wiilka walaalkeed ayaa nafaqa qaadaya haddii la guursadona ninkeeda nafaqada laga rabaa
mar walba gabdhuhu wax allaala wixii ay cuni lahaayeen iyo waxay xidhan lahaayeen iyo maaragtay waxay ku raaxaysan lahaayeen raggaa laga rabaa marka dhaxalkooda 50% la siiyana baaqi intaa waxa la yidhi idinku raaxaysta oo idinku haysta oo dharkiina siista oo iyaga xor ah iyaga wax nafaqo ku waajibtay ma jirto dumarka haddii la qabana ciddii guursatay baa nafaqadii lagu waajibiyey haddii ay reerkoodii joogaanna reerkooda raggii mas-uulka ka ahaa iyo aabaheed iyo walaaladeed iyo adeeradeed baa nafaqadii lagu waajibiyey sidaa daraaddeed iyaga xoola lagama rabo waa sababta xoolaha ragga loogu badiyey maadaama faamiligii oo dhan ay maalkii qaybinayaan waa sida reer galbeedkaynu maanta ku nool lahay marka cashuurta aad dowladda siiso gabadhii markay uuraysato iyo markay ilma aanay lahayn iyo markaanay shaqaysanahayn dowladdii baa damaano qaadaysa sida reer galbeedku xoolaha u qaybiyeen baa islaamkana loogu qaybiyey intii xoogga lahayd ee ragga baa la yidhi intii fududayd ee dumarka een xoogga lahayn ha damaano qaadaan marka intii xoogga lahayd in la yidhaahdo xoolihii maadaama iyagu ay damaano qaadayaan gacantooda ha la geliyay si ay gabadhii dib ugu masruufaan miyaanay cadaaladii ilaahay ahayn waa cadaaladii ilaahay laakiin rag iyo dumarku way siman yihiin waayo hadduu nin dilo gabadha waa loo dilaya hadday gabadh nin dishana waa loo dilaya waa sidaa sharciga islaamku yani maaragtay mid laba aabale lama jiro arrintu waa sidaa calaa kulli xaal ninkii markii la qisaasayey ayuu shaydaankii haddana u yimi waryaahe aniga ayaa gabadha inaad disho sabab ahaa inaad u gashan anaa sabab ahaa inaad xabaasha qodan anaa sabab ahaa in xabaasheedii lasoo helo anaa sabab ahaa in maanta lagu dilana anaa sabab ah aan ku badbaadiye waa shaydaankii baa la hadlaya walciyaadu billah aan ku badbaadiye mar qura ii sujuud buuri aniga ii sujuud waa shaydaan waxay shaydaankiibuu u sujuuday hadda waa la qisaasayaa markuu sujuuddii ku hubsaday inuu gaaloobay ila marka hore macsiyuunbuu galay gabadh baanuu dilay haddii loo dilana qisaastii way ka hadhi lahayd mogtay haddaad qof disho oo laguu dilo inaan dembi lagu haysan qof baa dishay waa laguu dilay waa lagaa jaray nabaday islaamnimadaadii waxba ma noqon diintaadii waxba ma noqon qisaasta iyo xuduuddu maxay tartaa waa in dembigii lagaa jaro uun simply ninkii wax dilay loo dili lahaa ee dembigii sidaa kaga hadhi lahaa ee jannada geli lahaa ee intaa caabidka ahaa ibliisku muxuu la rabay inuu gaalaysiiyo uu gaalaysiiye id qaala shaydaanu lilinsaani kfur waqti shaydaanku uu ku yidhi insaankii waar gaalow falamaa kafara markuu gaaloobay qaala innii barii'u minka waar beri baan uu ka cararay leanna markuu ilaahay qayrkii u sujuuday shaydaankii baa cararay qaala innii barii'u minka uu ka cararay innii akhaafu allaha raba alcaalamiin anigu waxaabaan ka baqayaa buu yihi alle wuu cararaa shaydaanku meesha alle loogu sujuudayo marka la aadaamayo ama la aqiimayo ama la sujuudayo wuu cararaa saan ciqaab uu soo degin ilaa waa kan sujuudi diiday ninkii isaga u sujuuday buu ka cararay innii akhaafu allaha raba alcaalamiin buu yiri walciyaadu billah waxaan uga jeedaa shaydaanku cadow buu inoo yahay geerida maanta cali khaliif ku timi umushaymo geerida hooyadeed ku timi geerida maanta maalin walba dhacaysa geerida coronavirus ku imanaysa geerida accidentka ku imanaysa geerida beerkoo istaaga ku imanaysa geerida kelyahoo istaaga ku imanaysa geerida neeftoo istaagta ku imanaysa geerida asbaabteedu fara badan tahay waxyaabaha maanta inagu dhacaya waxa weeyaan waa wax caadiya waa quraan ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegay yani maartay qofku wuu dhimanaya kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba geeridii dhadhaminaysaa wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama maalinta qiyaame ayaa nin waliba ajarkiisa helaya faman suxsica can innaar ciddii naarta laga dheereeyo oo wa udkhila aljanna jannada la geliyo faqad faas muxaadaradii baan ku jiraa way ii suurta gashay ilaahay ku barakeeyo ilaahay ku barakeeyo ilaahay ku barakeeyo faqad faas baa layidhi ciddii maxaan ku dhahdaa kaasi way liibaantay wama alxayaatu dunya adduunyaduna wax kale ma aha ilaa mataacu lquruur ilaahay baa yidhi subxana wa tacaala adduunyadu waa raaxaysi yar oo ku kedinaya maxaan uga jeednaa oan ka faa'iidaynaa geeridan maxaan dadka saalixiinta dhibanaya ka faa'iidaynaa waxaan ka faa'iidaynaa inaan dib u xisaabino nafteenna inaan dib u toobad keenno inaan ilaahay u soo laabanno subxaana wa tacaala inaan qalbigeenna
nifaaqa maaragtay aan ka maaragtay ka nadiifino inaan qalbigeena macsida maaragtay ka nadiifino in macnaa qalbigeenna uu maxaan ku dhahdaa maaragtay qalbigeenna maaragtay aan dembiga maaragtay ka badbaadino inaan ceebta ka badbaadino inaan maaragtay caydhnimada iyo nifaaqa ka badbaadino inaynu ikhlaasnimada ka badbaadino inaynu ka badbaadino yani inaynu murugoono inagoo muslima ilaahay baa yidhi haddaa muuminiin tihiin ha murugoonina idinkaa sarreeye haddii dhibaato ay idin gaadhay dadka gaaladaba dhibaato aan la hadlo in yar raalli ahaada ilaahay ha barakeeye in yar aan la hadlo second iga raalli ahaada second ma idinka maaha gabar maaragtay xiriirinaysa baa iyana isla caawo sheekhe waan ku guulaystay ilaahay ha barakeeye marka maxaa laynaga rabaa ilahay idin barakeeye waxaa laynaga rabaa qofku geeri kastoo dhacda geerida muuminka waa laga faa'idaa noloshiisana muuminka waa laga faa'idaa qofka muuminkee dhintay geeridiisa waa laga faa'idaa laanna ilaahay baa lagu xasuustaa subxaana wa tacaala masiibo kastoo dhacda masiibada muuminiinta ku dhacaysa waa laga faa'iidaya qofka geeridiisa waa laga faa'iidaya waa inaynu geerida ka faa'idnaa waa inaynu ilaahay ugu laabanaa waa inaynu xasuusannaa inaynu dhammaanteen ilahay u laabanayno subxana wa tacaala waa inaynu xasuusannaa oo maaragtay in nebi maxamed haddii cid la daynaya nebi maxamed in la dayn lahaa wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul baa layidhi nebi maxamed muu ahaanin ilaa rasuul ay hortii tagtay rasuul isaga ka horreysay oo dhimatay ee maaragtay fa in maata hadduu dhinto aw qutil ama la dilo inqalabta calaa caqaabikum miyaa ilaahay ka tegaysaan baa layidhi oo cirbihiina miyaa ka laabanaysaa maaragtay fain maata aw qutila maaragtay inqalabtu calaa caqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi qofka cirbaha dib ugu laabta geeridii nebi maxamed ka gadaal qofka isagu dib u laabta oo gaalnimo iyo diinla-aan ku laabta falan yadura allaha shay-a alle waxba ka dhibi maayo wasayajzi llahu shaakiriin laakiin dadka ilaahay mahadiya ee iyagoo alla la nool ilaa intuu alla ka oofsanayo ilaahay baa subxaana wa tacaala abaaliya kuwa shaakiriinta ah waxaa layidhi innaka mayitun baa nebiga lagu yidhi nebi maxamedo waad dhimanaysaa wa innahu mayituun iyana way dhimanayaan baa layidhi markay gaaladu yani ilaahay ayay su-aal weydiiyeen munaafiqiintii nebi maxamed la duulay waxay yidhahdeen low kaana lanaa min alamri shay maa qutilnaa haahuna dagaalkii uxud markii muslimiinta lagu jebiyey ila waa la imtixaamaya jabka iyo maxaan ku dhahdaa guushu waa labadoo imtixaan ayaa munaafiqiintii maxay yidhahdeen iyagoo nebiga dhaliilaya waxay dhahdeen low kaana lanaa min alamri shay haddii annaga umuurta wuxuun la naga siin lahaa maa qutilnaa haahuna halkan lanuguma laayeen bay yidhahdeen halkan lanuguma laayeen markaasaa waxaa lagu yidhi qul waxaad ku tidhaahdaa ina alamra kullahu lilah amarka oo dhan alle keligii baa iskale qul low kuntum fii buyuutikum baa layidhi haddaa xataa aydaan dagaalka uxud soo geli lahayn munaafiqiinay oo guryihiinnii joogi lahaydeen labarasa aladii kutiba calayhim alqatlu kuwii geerida lagu xukumay gurigooda bartankooday ugu iman lahayd ilaa madaajicihim bartay jiifaan ayay ugu iman lahayd sariirtooday ugu iman lahayd haddaba lu fiirso lidaalika baa layidhi qul ina almowta aladii tafiruuna minhu mowtkaa ka cararaysaan fa inahu mulaaqiikum wuu idinsoo haleelaya yaa ka carari kara geeri ma jirto qof ka carari karaa walciyaadu billah qof walba uu imanaya ilahay baa yidhi wamaa tadri nafsun maada tagsibu qada berri nafi waxay kasbad doonto la garan maayo waxaad heli wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut meeshaad ku dhimanaysa yaa garanaya ma garanaysid waaba lagu geenaya kitaabka aan leeyahay talbiisul ibliis ee ibnu jawsi ayaa qisasku soo arooriyay waxaa ka mid a nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyey mulki laa yanbaqii liaxadin min bacdi buuhi ilaahay buu ka baryey ilaahay mulkigii buu siiyey marka shayaadiinta jinka insiga
shirarkiisa waxa ka soo qayb geli jiray oo ku kulmi jiray yacnihi maxaan ku dhahdaa cid walba malaa'igta maartay iman jirtay jinkii insigii shayaadiintii cafaariiddii dadkii saalixiintii kuwii gaalada ahaa ee u haystay dhammaan shirkii ka soo qayb geli jireen ilaahay baa u sakhiray adduunka o dhan buu xukumi jiray waxaa maalin kamid isagoo shiraya oo yani kabinetkiisa ay fadhiyaan baa malakul mowt baa kabinetkiisii fadhiya nin marka muslim ahoo dee raggii insi ah oo dee reer bani israa'iil oo raggii nabiyullahi suleymaan la shaqayn jiray calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtay wuxuunbaa ishiisa ku dhacday malagan halkan fadhiyo oo dee macnaha malaa'igtu tashakul bay samaysaa yani dad bay iska dhigi karaan sidii jibriilba uu ugu iman jiray nebiga isagoo marya cadcad marka isagoo nin u eeg buu meesha fadhiya markii shirki dhammaaday buu nabiyullahi suleymaan calayhi salatu wasalaam weydiye uhi ninkii halkaa fadhiyay muxuu ahaa suleymaano markaasuu wuxuu yidhi wuxuu ahaa malakul mowt anigii fiirinayay buuhi ninkii baa baqday iga kaxay buuhi meeshan ilaaba ilaa waa nin baawar loo wasiiro ragga la taliyayaasha nabiyullahi suleymaan ka mid a waa imtixaan wuxuu u sakhiray dabayl nabiyullahi suleymaan ilahay wax walba uu sakhiray dabaylaha waa kii carshigii balkhiisa bartuu fadhiyey isagoo ilbiriqdii aan odhan suuratu namal akhriya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa keena yani ilaahay wuxuu ku sheegay axadka keenay balkhiisa maarata carshigeedii kii agtiisa alladii cindahu cilmu lkitaab kii cilmiga kitaabka yaqaanay ana atiika buuhi anaa kuu keenaya qabla an yartada ilayka darfuk intaanay ishaadu biliq odhan saa waaba ag yaallaaba waa kii nabiyullahi suleymaan ilaahay u mahadiyey manaa awoodda ilaahay uu suleymaan siiyey dabayl buu sakhiray ninkii waxaa la yidhi ardul hindi baa laga tuuray markii dabaysha dhigtay saa waa malakul mowt baa jiqi laga siiyey wuu qabtay wuu ofsaday nabiyullahi suleymaan waa loo waxyoonaya wuu ogaaday allahu akbar malakul mowt bay sarkeen maalin dambe warheedha ninkii intaan kaa mastaafuriyey markaan dabaysha u sakhiray halkaad ka heshay buu ku yidhi sodigaa qabtay wuxuu yidhi anigu markan aad leedahay kabinetkan wada fadhinay maba ogeyn liiskana iguma jirin laakiin daqiiqadaa halkaa aan ku qabtay buu liiska igu jiray buuri balo fiirso geeri ka carar buu isiri muxuu cararay bartii ilaahay uu ku qaban lahaa len suuratulbaqari ku jirtaa ummado dhan oo geeri ka yaacay oo reer bani israa'iil ka mid ahaa oo rabbi ku yidhi muutuu dhintay oo ilaahay faamaatahumullah ilaahay uu laayey oo markii dambena alla soo nooleeyey maxaa dhacay geeridii siraan ka carara waa la dhadhansiiyey geeridu wayna soo haleelaysaa wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut meeshaad ku dhimanaysa ma ogid waa lagu kaxaynayaa ma sariirta ma gaadhiga ma berri ma isbitaalka ma coronavirus ba ma hargabba ma maxaan ku dhaha maartay ma sambabkaa istaagaya waa maxay sababtu maxaad ku dhimanaysaa waa sidaa markii afartan habeen oo candhuufa 40 habeen oo xinjira 40 habeen oo maartay cad yar ah 120 habeen markaad jirtay baa waxa la qoray arsaaqdaada waxa la qoray ajashaada waxa la qoray amalkaaga waxa la qoray inaad shaqi noqonayso waxa la qoray inaad saciid noqonayso allahumma inna nasaluka an nakuna min as-su'ada ilahu kuwa su'adada naga yeer rabbiyo arintaas yani inuu qofku shaqi iyo saciid adiga oo 120 jira la qoro shaqadaada maaha taasi waxa la yiraahdaa waa qadaa rabbiga kawniga ah laynooma dirantaa ilaahay wuxuu leeyahay yani xukunno kala duwan mid wuxuu leeyahay xukun kawni ah kawnka wixii ka dhacaya qofkii saciid noqonaya qofkii shaqi noqonaya inta naarta galaysa inta jannada galaysa ilaahay baa mas'uul ka ah lama weydiiyo sababta lama weydiiyo laakiin maxaad mas'uul ka tahay ilaaha qadiisa sharciga baad mas'uul ka tahay ilaahay laba qaduu leeyahay iraadadiisa sharciga iyo iraadadiisa kawniga iraadada kawniga ee looxal mahfuudka ee 50,000 sano ka hor ilaahay wixii dhici doono uu qoray ee looxal mahfuudka ku taala
kitaabka ilaahay agtiisa sabqay waxba laga bedelin ee shaqi iyo siciid maalinta lagu qoraayo ilaa waa la waafajinaya waxa la qoray intaan adduunkaba kownka ilaahay abuuran 50,000 oo sano ka hor baa kitaabka waxa ku dhacaya iyo waxa ku qoran la qoray intaan adduunka la qorin qabla an yakhluqa Allahu samawati wal ard ayaa la qoray 50,000 sana baa lawhul mahfuudka la yiri iyo qalinka qor oo wax walba la qoray halka cilmiga ilaahay ku yaala lawhul mahfuudka waxba laga ma bedelo maxaa wax laga bedelaa ee qofku saciid ku noqon kara ama shaqi ku noqon kara qadiisa sharciga qadaha sharciga waa maxay waa in aqli lagu siiyay damiir lagu siiyay jannadii lagu sheegay naartii lagu sheegay quraankii lagu sheegay shaydaankii lagu sheegay anbiyadii lagu sheegay awoodii oo dhan lagu siiyay ilaahay uu ku yiri inta aanad awood lahayn waxba kugu malihi hadaad xanuunsato hadaad miyir laadahay hadaad weysaysan kar weydo hadaad jinaabada ka qubaysan kar weydo hadaad xaydka iska daahirin kar weydo waxa la wixii dhibaato lagu male la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ki walaa waxba lagu male saqiirkii waxba lagu male odaygii haramkee asaasan waxba lagu male aqligaagii iyo cilmigaagii iyo awoodaadii iyo weysadii iyo duruufihii wax alaala wixii aanad awood u lahayn waa laga kor qaaday intaad awoodda ugu leedahay ku ilaahay waa caabud jannadiina uu ku sheegay naartiina uu ku sheegay ikhtiyaarkina waa lagu siiyay baawarkiina waa lagu siiyay intaasoo dhan baa lagu sheegay cilmigiina waa lagu cadeeyay waxba lagama qarin waxa la waa qadaha ilaahay sharciga kaas baa lagu la xisaabtamaya isadiyo business waxa arshiga kugu yaala isadiyo business waxa la xul mahfuudka kugu yaala businesskaagu oo waxa la ka doonay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun waxa lagu abuuray cibaado bas awoodeedina waa lagu siiyay kitaabkeedii baa lagu siiyay dariiqeedii baa lagu siiyay nabigeedii baa lagu siiyay xaqeedii baa lagu siiyay baadilkeedii baa lagu sheegay makaayida shaydaanka lagu sheegay waxa aad ku halaagsamayso dhan baa lagu sheegay ka beed baa lagu yiri dariiqa saxaamar Allahu akbar lidalika aan soo gabagabeeyo yey ila tagin waxa weeyaan maanta aan ka faa'iideysano geerida walaalkeen ku dhacday cali khaliif ku dhacday ama qof kasta oo muslim ku dhacaysa inagu aan ka faa'iideysano ilaahay baa wuxuu yiri wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin kalimada wanaagsan ee xaq ah ee lagu badbaadayo ilaahay wuxuu siiyay mursaliinta iyo cidii raacday wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin bu ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimada wanaagsan ee mursaliinta aan qaadan aan ka baydno waxay ambiyadu inooga digeen ويوم تقوم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وحقران كلا إنه وش مجرمكم مركه وإلهي بري هري ماده اللي لم حادون كيسو سو عمل فلويدين الله وحي يقول دارن دونان إن أنا يساعد ما يادون كي تشوي وح كلبا مركه عقابك هي وحد عيارك أركان إن الزلزلة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة وحوي مرتي وأرن عظيمة بالي قوي مرت يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت قبلي وحنو جنسي وحي وإلا ويسا المهي جنسي وتضع كل ذات حمل حملها تيور كلهينا المي بد وسو بودايا وترى الناس سكارى ويسخرامي ينددكم وما هم بالسكارى ما سخران سنة معي أركان ولكن عذاب الله شديد عذاب كيو كسوس على أركان iyagoo maxsharka ka guranaysa mujrimiinta madaxa adag lintaan xisaab dhicin bay maxsharka guranaysa thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya ilaahay basayni kuwa madaxa adag baa naarta jahannama iyadoon xukunba dhicin ayaa kibirka iyo qooqa ay haysiya carada ay caraysan tahay ilaa naartu waa carada ilaahay baa maxsharka ka guranaysa ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا أنك قرن إنه إلهي لكوا إن نار جهنم اللي ودت يوم مرت يعني مرت أي كو يحق له الله أكبر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن مرت عتيا الله أكبر ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا وارده والدي مجرى قف بني آدم قال يا إسلام مؤمن يا منافق نبي يا فرعون
يعني سيدا لو كلا فوقي إلهي لو كلا دويهي مجرو إلا واردوها وكسو أرور سنارة جهنم شدك السراد بابرتن كذا مرة ثم مركا نارة جهنم لقوة أروره إلهي أوديس أو قرى ثم ننجي الذين اتقوا وحنو بدبادلنا كوي ربي كدو سجري ونذر ظالمين وحنو نارة جهنم كجتجينا ظالمين تي عن صلاة الصبح تكنجرين هدانت صلاة تكن ظالم باتي نارة جهنم لقا جتجيا ثم نذر الذين مرتي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين تي وحنو كجتجينا فيها نارة جهنم تشثية يجو شلبا شبسن والعياذ بالله هدو maxay oranayaan maartay yani zabaniya marka naarta jahannama ay sidaa u galaan waxay oranayaan ma salakakum fi saqar war maxaa naarta idin soo galiyay saqara qaalu lam nakum min al-musallin ma nantu kan jirin baranayaan ma nantu kan jirin Allahu akbar ma nan masaakiinta quudin jirin Allahu akbar wa kunna nakhudu ma'a al-khaa'idin waxaanu la dabaalan jiray kuwa dabaalanaya dunuubta haddii culimada la caayo waa caay jiray haddii diinta laga baxayo waa ka bixi jiray haddii gabdhaha la kufsanayo waa kufsan jiray haddii gaal lala cawanayo waa la cawayn jiray ilaahow meel kasta oo aad necebtay baanu la dabaalan jiray kuwa dabaalanaya ilaahow meel kastood jeceshahay kuwa joogaanu ka carari jiray wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin ma taqaanaa dadka yacnihii xunxun المرء مع دين خليلي قفك دينتي سوى عدة ولا جارك يهي وركن يارو أبها هذا هو يدها هذا قف حن يعني مارته دوان أصحابتي سهل نقن خير كأدر دارا لكن كفقوا وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين شيطان كوحو كورنيا ورا آخرنا يودادوك كوحي جنيان اسكدا enjoy yourself enjoy yourself. That's why waxa maanta gaaladu ay sameeyay oo dhan Nike do it buu kuleeyay do it enjoy yourself gaaladu maxay kornayaan markaad soonto jaamacadka kuwan kooda jiraa why you gonna torture yourself ay kornayaan does your Allah need to be maxaan ku dhadaa maarta hungry saas bay kornayaan tell me ishag bay kornayaan ma ilaahay baa imaka waxaad leedahay u baahan gaajadayda saas bay kornayaan لينكي مركا قف كان إيمان كلينا ضعيف كها وحليه والله إنك نربو شيء إلهي محوق كذا ذو باهي هارس كعن والعياذ بالله وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين إلا جريد نوتمي فما تنفعهم شفاعة الشافعين قفنا للرمى اثنين كو إرجيا إرجدا ذو حبو تاني ما يسبالي الله أكبر فما تنفع شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضون ورمحي وانا ذو قعر الجنين بالين فما لهم عن التذكرة معرضون كأنهم يعني حمر فرد من قصورة سيدي دبديت لباح وقارسنا يا أركي ورمحي دينته وقعر الجنين ورمحي قرآنك وقعر الجنين ورمحي ملائكة يحقق جبريل فرينتو الله كان النبي محمد وكان النبي محمد ونبي ومد النبي محمد وكاني مركي مقلان محي وقع على الجيرين سيدي دبديت أما الزبرها كعرّي اللي باح وحيوانات وحق بدل لما مركي عرّيان تاسويل هيكون مثالي قف فينا حق دقي سنة كعرّه والشيطان قدوف صدو كأنهم حمر مستنفرة فرد من قسورة الله أكبر maxaa ilaahay miisaal oo quraanka ku keenay ahad yani ahad wuxuu tarayaa ma jiro maalinta qiyaamada aabaha hooyada nabiga maxaa lagu yiri nabi maxamed baa lagu yiri walaw taqawala alayna ba'd alaqawil haduu hadal baadil nabi maxamed oran lahaa laqadana minhu alwatin waxaanu geyn lahaynin maxaan ku dhadaa maartay xididka ugu weyn hal bawlaha dhiiga maskaxda siiya baanu jari lahay لقطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ده مدك تانو قمر الله ثم لقطعنا منه الوتين حيث كوينا مسكحة ورابية يديك شركة أي نقول له
فما منكم من أحد عنه حاجزين عندنا كين دفاعنا الله مهركن من الدفاع كرتان والنبي محمد محاضر ملنا نينك ما أنت ظالم كأه فسق جاي حمانته أبحي يا دفاعية إلههم با سبحانه وتعالى هنو ننكره أحد دفاعية من شنو وحبضا بين قدم بيول عليال أنسك إلى لنو أنسك إلى لنو ما أنت وحين كشقينا قبيل وحين كشقينا مصيبة وحين كشقينا الدين الآن وحين كشقينا مارتي يعني هي إني نؤدونك إسكجوجنا لمودية وحين كشقينا وحيابهان إنهم فعين وحين كشقينا وحياب الشيطانكم حنكنا مارتي ومارتي إنجا بابين أيو وحين كشقينا إننا صدق الله بحين وما تنفقون من خير فلأنفسكم نارته وحيابها إلهي إنجا بدني وحكم إذا صدق ما جرت الشيء نار وحبختية يا على إلهي أن صدقاهين إلهي بوحوري وما تنفقون من خير وحمان تعدون كلاسي بحضان فلأنفسكم جنة وحين هو قال إن قال وحسيسه إن أي وحسيسه يعني إسلام كوا سيستم معجزة سو هذا قار إسلام شيئا يدتك ما لايان إن دتك لايو جنة لقوا مقالو إن لنولا يابا جنة لقوا كلا قبل بقية بني إسرائيل ساسحين كسوان باسو مرتي عيل يدو هرادن وبقية وشركة دي كان عساتها مركاسا هرادكي أي عيلكي كش بيي كسو عبت مركي كسو بحضي باوحي كاش عيلكي قود كيسة أي هرادن وهرادو لمنايا قلبي جيدي أي الدبعي إلا إلهي باوح للربا وأضون هدي صفة شركة دي كان عسانا ساعي كحنتهاي سفوين كلوان لكوغي دادك لما قوصيو قار waxa jira iyaga oo diinta xambaarsan naarta ku qoran bal saddexda qof ee ugu horeeya ee naarta lagu horin doono saddex sifo wanaagsan bay leeyihiin lidaalika qofka sifada wanaagsan lihi iskuma huwa jannada ilaahay qofka sifada xun lihina illa ilaahay sir buu koog yahay oo dadka isaga abuurtay maxaan ku dhahdaa jannada kama quusan karo saddexda naarta lagu horiye ee sifada wanaagsan leh waa caalim naarta la gelinaya inta naarta la gelin baa ilaahay xunaya maxaad adduunkii ka qabatay ilaahu ma jiro buu dariiq ilaa quraankii iyo sunnadii iyo xaqii baan bartay dadkiina waa gaarsiiyay ilaahay xunaya beenaalaata waxaad xaqa u baratay oo dadka u gaarsiisay in lagu yiraahdo caalim baata ilaahay qeyrkii inaad adduunyo ku hesho ammaan ku hesho wasiirka awqaafta ku noqoto madax ku noqoto darajo ku hesho meeqa jaamacad diineed maanta darajo ku helaya dii qofku darajo ku helay loo diidi maayo laakiin waa inaanu ujeedadu ka lumin waxaad u samaysay baa la yidhi cilmigaas oo dhan ilaahay cidaan ahayn ayaad u baratay in lagu yidhaahdo caalim baad u baratay waqad qiila laka waa lagu yidhi ثم درح في النار نار تلقطوريا لأن الدين إخلاص إلهي درتي ومبرر الدنيا وبرت إلهينا الدنيا دوني ما هي آخر الرواق قفك الله بدوا وتاجر كان عصده درجي وحول بحيستا مالك يسود مسوبح حنشري إلهي ورني وربحات صاصة بس إله مجرى طريق خيري وأنا كتشر إلا حولها مسوبح يا ذي درتها إلهي ورني كذبت بيانات waxaad u bixisay in lagu yiraahdo waa sakhi Soomaalida ganacsiyadeena iyo kambaniyadeenna way tartamayaan gaadha la bixiyay kana la bixiyay hayaa ka soo kacay kambani la tartamay wal billah wujuhda dadkii iibsanayaan waxay doonayaan adduunyada inay lacag ku helaan inta ay maxaan ku tartamayaan in la kordhiyo telefoonada lagu hadlayo ilaahay tisaaxo kuma leh wixii ay qarsadeen ilaahay dartay u bixiyeen bas baa laga abaalinaya haddaan lagu ciqaabin kulliba janno ku helmayaan ilaahay wuxuu kornaya waad bixisay in lagu yiraahdo hebel waa sakhi shirkadii hebel ku guuleystay hebel baa gaari ku helay wal billah waqad qila laka waa lagu yiri wal billah naarta lagu tuuraya ka saddexaad waa kee ka saddexaad waa nin mujaahida oo gaalada diinta ka difaacay
oo dhiiggiisii ku bixiyay baa loonaya maxaad soo samaysay isagoo dhiiggii ka hooraya rabbi oo ma jiro dariiq diintaada lagu kor yeelayo ilaa waan u soo diriray ilaa dhiiggii waa kan igu yaalla waa lay soo dilay ilahay xunayaa beenaalaata waxaa laguu soo dilay in lagu idhahdo shujaac baa tahay reerkiinaad difaacaysa soomaali baad difaacaysa soomaali iyo etoobiya hadday istilaanaad soomaalinimo u dirirto ajar ka heli maysid haddaad se ilaahay dartii u dirirto iyo diinta inaad difaacdo iyo muslimiinta ajar baad helaysa shujaac baad u dirirtay waqad qiila laka waa lagu yidhi suma durixa fi naar gabadhii aan ku laabanno markay soo cabtay ayay heshay debadda meeraysanaya oo harraaday intay kabteedii bixisay buudka ahayd bay ceelkii ku laabatay biyay ka soo bixiso afkay ku soo qaad ceelkii bay soo fanatay eygii bay waraabisay qalbigay u qaboojisay eygii baa naftii ku soo noqotay ilaahay baa fowqa carshihii isagoo ku sugan ilahay wuu inaga sarreeyaa khalqigiisa uu ka sarreeyaa qur-aankaa inoo sheegay inuu carshiga ka sarreeyo ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala ilaahay baa inoo sheegay xadiiskan baa lainooga sheegay fowqa carshihii buu ilaahay uga soo mahadnaqay addoontaa marka la leeyahay ilahay fowqa carshigii ku sugan yahay wiinala joogaa ilaahay kaama maqna qalbigaaga iyo adiga ilahay wuu u dhexeeyaa cilmigiisu ilaahay yani samcigiisa iyo basarkiisa iyo iraadadiisa iyo awooddiisa intaba wuu kugula joogaa laakiin kan kuma qaado 7 samo waa 7 shilin oo meel lagu daadiye bannaan ah marka kursiga loo eego ilaahay kursigiisuna marka loo eego carshiga ilaahay waa shilin meel bana lagu tuuray ilaahay marka carshigiisa loo eego cadamadiisana cid qaadi kartaa ma jirto makhluuqa ugu weyn oo carshiga ilaahay subxaana wa tacaala sidee buu ilaahay marka musqusha yar ama afkayga ilaahay ugu dhex jiraa khalqigiisa alla uu ka sarreeya khalqigiisuna ma qaado ilaahay macnaha spaceka iyo timeka iyo waqtiga waxaynu wax ku qiyaasoo dhani ilaahay ma qaado ilaahay wuu ka ballaadhan yahay ilaahay waa cadiim waa jaliil marka jahliga maartay iska saaro diinta ilaahay baro xaggee nabiga la qabadsiiyey leylatul israa wal micraaj ilaahay baa loo geeyey 7 samo iyo intaba ugu dhaaf jibriil wuxuu kaga hadhay siratul muntaha ilaa nabigu u arkay ilaahay iyo muarag nuurkiisu arkay la isku hayo ilaahay ma dhulka hoos u qabadsiiyey nabiga maya wala maartay wala xaggee waxyu ka yimaada xaggee arsaaqdu ka yimaada xaggee malaa'igtu inooga soo degtaa xaggee rabbi fariimaa ka soo dira xaggee rabbi maxaan ku dhahay salaatuleelka ka soo degaa xaggee ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ciise la geeyey xaggee qur-aanka laga soo dejiyey xaggee acmaasheenna loo rafciyaa xaggeynu maaratay gacmaha u taagaynaa xaggee laynaga xukumaa samadaa laynaga xukumaa ilahay wuu inaga sarreeyaa uma istawaa calaa carshi 7 aayadood baa ku soo arooray alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaahay halkuu isku sheegay waynu ku sheegaynaa wa maca dalika ilahay wuu inala jooga samcigiisa basarkiisa cadamadiisa cilmigiisa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid maya marka la leeyahay aayaadka dhammaan ilaahay inuu inala joogo oo dhan culimada ahlu sunna waljamaca waxay ku fasireen bicilmihi marka lagu leeyahay maa yakunu min najwa 3 ilaa huwa raabicuhum marta ilaa walaa 5 ilaa huwa saadisahum yani meel kastaba macooda macyadaas cilmi bay aayadda ku bilaabantay cilmina way ku dhammaatay wasaas weeye marka la leeyahay malaa'igta suuratul qaafiya maxaan ku dhaha suwarka markay oofsanaysa leeyahay wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun ilaahay leeyahay annagaa idinka dhow markaan nafta ka saarayno ay bicilmihi bay culimadu ku fasirayaan wa bimalaa'ikatihi bay ku fasirayaan kuma fasirayaan bidaatihi ilaahay daataan khalqigiisa uga sarreeya calaa kulli xaal fowqa carshii baa addoontii muxuu ku yidhi fashakara allaha ilaahay baa yidhi waad mahadsantahay addoontaydii wa adkhalaha aljanna jannada ayuu geliyey waa gabadhii jirkeeda ka ganacsan jirtay soo ma aragtid arrintu marka ilaahay maartay addoomaha qaar baa dahab ah addoomaha qaar baa naar ah iyagoo adduunka khayr uu ka muuqdo bay albaabada naarta ku qoran yihiin qaar iyaga oo shar uu ka muuqdo bay albaabada jannada ku qoran yihiin lidaalika baa rasuulku wuxuu yidhi ina axadakum yacmalu
عمل مرتي أهل الجنة قفكو عمل كي أهل الجنة طريقي سيبوها يا فيما يبدو للناس سدتك ومقطع حتى مرتي ما يكون بينه وبين الجنة إلا مرتي محنكونا إلا الدراع مركا إساقا إيا جنة دي أو دودو ندحيو با فيسبق كتاب كيسي با كديرينيا إلا اللوح المحفوظ كوحويا لأنه أهل النار يهي دادك أيوم مؤمن ومقضي لكن خبيث بوها إلهي هو أوغا قفكا إلهي با أدومها كايقان إساقا أبورتي فيسبق كتاب كيسي با هرمرنيا فيعمل عمل أهل النار نارتي وقرسنا يددك كقرسونيد با مارتي كسو بحيسا عمل كي النار أيو قويا فيدخل النار نارتي بقليا وإن أحدكم لا يعمل عمل أهل النار متكين عمل كنارتا أيو سمانية فيما يبدو للناس سددك وموقتا لكن قفك سوى أهل الجنة والذهب ددك كقرسون إلا مركي يسقي نارتي سجران دراع فيسبق الكتابة كتاب كي سبا كور مريا فيعمل عمل أهل الجنة عمل كي أهل الجنة وسمانية فيدخل الجنة إلهي بالجنة قلني لذلك والله ليال waxay jannadu baahantay tawaadu waxay u baahantay naxariis waxay u baahantay dadka inaad maartay aanad iska weynin waxaad u baahantay inaad makriga ilaahay aamin ka noqon ilaahay makrigiisa qofka aamin ka ah wal ciyaadu billah maxaan ku dhadaa maartay calaamad xun baa ka muuqata makriga ilaahay aamin ka noqon hadaad salaatul leyl tukato hadaad sheekh tahay wax kastood samayso makriga ilaahay aamin lagama noqdo wax kastoo xumaan oo ka dhacana ilaahay naxariistiisa lagama quusto qul yaa cibaadi alladina asrafu ala anfusihim warkuwan ilaahay naftooda ku xadgudbayow la taqnadu min rahmatillah bil ilahi naxrafada ilaahay ka quusanina inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a ilaahay dunuubta dhan u dhaafa innahu al-ghafurur rahim ilaahay waa ghafuru wa rahim asmaadaas iyo sifaadka su'aal leey ghafurnimadiisa ka faa'iideyso rahmadiisa ka faa'iideyso ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وحي خير هذا ركتي له ميل بكوها يا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وحي شرنا ميل بالوجوها يا إسك إلهي خير كاجا شر كاجا كبدي إلهي أسود وو فضلك إلهي بدي محن كل هذا مرتي مر والبا دتك مساكين تلنا ولو دتك عفي مرتي الذنوب تسك إلهي عدد إلهي إسك إلهي حمان تسك إلهي صدقة يسوع نار تكفجو صدقة كود دال صدقة عمر جاي دارسة علف كي كردسة نار تي بختيسة عدد إلهي بختيسة عافيمات بيكنتا إيمان بيكنتا يعني أهل الصدقة النقطة تذكر قرباء ما أنت يقول تذكر سومالدي وحبي الله بحكران أنت قاچون يسوي حسية يعني قف كستا أو قاچون يقول قلبي جيس علوش يسوي حجلسة نار تي بتسكسي دميس عدد إلهي بتسكسي بختيسة عمر جاي بعد دارسة عروت هذه بعد تعب وصيدكت عمل كادي يهل كاجا وضله أبها يهويدا بعض حترته إسك إلالي صدقة هالجودة دارو نارته هالإسك دميو أسماء إلهي هالجودة دارو خير كمارتي كفايديسته إلهي سبحانه وتعالى مارتي عقاب كيس آمنة كنقولنا قرآن كصاء روري يا حديث صاء روري مرة ما ينكره إنها سامكسو جبينيا كتاب كينا إنه إلهي مديك تسكس إذن كسيو مرول بكودة دالة كو إلهي لهذا فأما من أوتي كتابه بيمينه ها مقرأ كتابي إله كاليو كتابك يا أخريا فرحدة كوا إلهي ويديسته إني ظننت أني ملاق حسابيه وحنو جاينا لكل ما يلهي حسابتي دبورنيا فهو في عيشة راضية نور عليه أبو أيكون ولانيا في جنة عالية جنة الرسالة سينيا قضوفها دانية قرشة دوالو سودوينيا الله بلو في رسالة وحماشا كلوا بالونيا واشربوا عبا هنيئا يضو مارتعاني عيدين ديد هينو بلاشا بما أصلفتم وحيا أوهر مسنتين درادد في الأيام الخالية أيامي تجي شقادة صوقبتين ما أنت كدر قال ورنيا والدكين الدعية هذي تدحيين سودوية سجود ودعية هكو عروننا هذي حمان دين أمران محن كل أمارة حمان تكيلنا وبدكينه هذي نبيتن كهيان وبدك ودعية هذي حيين حمان تاكل راعنا هكو في النوبنا مرت حق إلهي محن كل أمر والبعث كذا حق إلهي عث كذا إسكيل علي مرت أعماش حن إلهي ما أنت قيامي وأما من أوتي كتاب بشمالي فيقول حرنيا يا ليتني لموت كتابي مركو حقوق قرن إلهم حاكني كني ورنيا ولا أدري ما حسابي يا ربي وحيث عنينا نقادين يا ليتها كانت القاضية تنوحى هر الله وحكمين الشق النقطة ما أغنى عني مالي مالكي يوحي أنصار راح يستحبيق مترين يا موزيقي يا محان كل هذا مرتي كلابيدي يا دروغدي يا دين حمدي
iyo xoolahan ku bixinayay xaqa ilaahay in maartay lagu damiyo ee wadaadada lagu caayo ee fanka lagu horumariyo ee masiibada lagu dhiso ee sharka iyo xumaanta lagaga shaqeeyo ma aqni canii maaliya bornaya halaka canii suldaaniya wasiirnimadii iyo madaxnimadii aan wadaadnimada uga tegey meeqa sheekhba maanta siyaasi noqday oo maanta khayr iyo maartay wanaagtoon aan gacanta ku hayn halaka canii suldaaniya saldanadii iyo awoodaan doontay in diinteeda uga tegtay bay halaagtay bornaya khuduhu baa loonaya qabto faqulluuh gacmaha iyo qoortiisa isku xidha ثم الجحيم سلوه نار الجحيم قليا بالونيا ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه سلسلة دوت الضباط الردونة والنار تمحان كل الضبعة نار تمارتي قليا بالونيا والعياذ بالله إنه لا يؤمن بالله العظيم إلهي مر من جن ولا محان كل مارتي ولا يحض على طعام المسكين ذات كين وحلسينا مج علين فليس له يوم الها هنا حميم ما دام أنو صدقنا لصابحين وحنا ارتكدمية وشفاعة قادنا أنو هيسن حميم يعد مارتي وحتى لسان جرين ورنارت وحلونا يا قبطسية والعياذ بالله وحاصرنا بعد ذنبيا إنك إلالية والعياذ بالله إلهي وحنو ويدسنا سبحانه وتعالى يود المجنون لو يفتدي يومئذ بالونا يا مارتي من عذاب يومئذ ببنيه حتى نيك مجرم كهي ويل كيسو وجعلا أيورنا يا ترى ما أنت مارتي أكو كانت كفرت دي وإنك صار إن القرآن كله بيكتالا يعني مارتي يوم يفر المرء من أخيه ولكن بكعرر وأمه هويدي وأبيه بكعرر مارتي وصاحبتي حاس كتالا وبني ويلشيسي وكل عرر يوم يفر من أخيه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته بني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وحكوا في لنبوهيا مدولي باو حسليه هاي كعر يوحكوا قبساني مركلنا وحكالان لها لو يفتدي مارتي إنو سكفران لها وحا أدونك جوغا حتى قبيل كي صدن قبيل كي المادة بعرينه وفصيلته التي تهوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كوي دالاي غير كيسا قبيل كيسا وحا أدونك جوغودن إني نار تقلان يساقو كلي لبد باديا وشعلان يا بالي والعياذ بالله اسكيل علي وحاصل المحي كسو نغنسا وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور انت اسمان كسو قبقبيني وجزاكم الله خير إلهي هيدن بركايو إلهي وحان ويديننا دنبقينا إنو دافو دنبقي والد كان دافو دنبقي علي خليف دافو دنبقي أم الشيمة دافو دنبقي مسلمين توردن دافو دنبقي والدين تير دافو دنبقي انتنا دقي سنة دافو أنك دنبقي يغانا دافو أولادي إذا ودنب دافو دمر كي يغير ودنب دافو لما مدى صويا ودنب دافو إلهي حقا إنو نقسو عليو حمانتا إنك إيلو إلهي حقدك إيو حمانتا قلوبتا إنك كنشرتا إلهي إنو نقسيبو مؤمنين إنك دقو كوا مؤمنين تا استعال أدونك مارتي دينتا إلهي سو كالميستا إلهي درتي سو جعل إلهي درتي سو دعية إلهي درتي محنقول هاي سو حرية إلهي درتي مسؤول كوه إلهي درتي مركي سركان شيطانك إيا حمانتا وحصوصتا إلهي دركي إلهي وينيديسا إيا عدمديسا إيا الذكرقيسا سو كاشدا قفك خلدما كوا وانية قفك مارتي حقا كسوان كوا إلهي سبحانه وتعالى ودعية إنو حقا إلهي كسوان وكحمينين إلهي كوا هاي نقيالو وجزاكم الله خير لما أنت وعند السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت كاين جيريودي عاو كلمة النحوسينا إلهي هو ذا دمر دافو كتاب كود إلهي مديك تاكسيو إلهي سبحانه وتعالى خير ما نريد ويديني وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين